muuqaalkii ugu qurxoonaa ee aan indhahayga saaro ee furin dagaal la iiga soo diro ayaa caawi soo gaaray. waxaan leeyahay reer Puntland muuqaalkaas waan ka jiibsan waayay anigoon ka falcelin caaw. idinkana waxaan idinka doonayaa inaad leegaraysaan. waa muuqaal cajiiba oo goordhow naga soo gaaray Calmiskaad oo kun jawaabood ka bixinayo waxa ka socda Calmiskaad. haddaba wax yar ila daawada muuqaalkan quruxda badan. muuqaalkan aad aragtaan wuxuu naga soo gaaray Calmiskaad. waa ciidanka Puntland oo rati ku wada dhaawaca askari ka tirsan ciidamada Puntland ee ka dagaalamayo Calmiskaad. waxa dhaawaca saaran waa askari ka tirsan askarta Puntland. dhaawiciisa waxa lagu sidaa rati waxaana loo sidaa goobihii gaadiidka si loogu qaado dhaawiciisa magaalooyinka. meesha uu ku dhaawacmay waxa gaadiidka ah awrta iyo tunka askarta. goob la geli kara ma aha. waa buuro dhakadood, waa hulaamo, waa boholo galeen, waa togog, waa dhagaxyo. waa goob aan diyaaradi ma ahane aan baabuur geli karin. qofkuna ya Allah uu ku galayo. waa halka ay ciidanka Puntland ay ka dagaalamayaan. ka warrama askariga halka ku dhaawacmay, askarta ka soo qaaday ee ratiga soo saartay ee u wada goobihii gaadiidka. goobaha gaadiidka la rabo in askarigan laga saaro waa bannaanka Calmiskaad. muuqaalkan wuxuu ina tusayaa waxa Calmiskaad ka socda inuu yahay dagaalka ciidamada Puntland ay Daacish kula jiraan. dagaal dhab ah, dagaal xaqiiqo ah, dagaal nafhurnimo ah. ciidamada geesiyaashana ee reer Puntland waxayna tusayaan sida ay uga go'an tahay inay argagixisada caalamiga ay wadanka ka saaraan. waxa ay ciidanka Puntland ay la dirirayaan maahan argagixiso gudaha ah, waa argagixiso maxalli ah. waa kuwa aan la af aqoon, waa kuwa aan nagu jir ahayn, waa kuwa aan nagu jismi ahayn, waa kuwa aan nagu luuqad ahayn oo wadanka la keenay. waxay la dirirayaan caawa. muuqaalkaas aad buu ii farxad geliyay sababtoo ah waxaan dareemayaa waxa ay ku sugan yihiin wiilasha Puntland u dagaalamayo ee argagixisada meelaha aad aragteen kula dagaalamayo. dhulka ay ciidankan ka dirirayaan waa buuro ninkii yaqaan ayaa yaqaan. waa buuro dhagaxan, sidoo kale waa godad, waa jeexyo, sidoo kale waa meelo togog ah oo duleela. meelahaas ayay ayagoo rati dhaansaday argagixisada ugu galayaan godadkooda. runtii muuqaalkan waa muuqaal wax badan tusinayo indhihii caafimaad qaba. maadaama aad dareemaysid askari dhaawiciisa rati dushiis la saaray oo askari kaxaynayso qoryo askar wata ay kaxaynayso si ay u geeyaan meel maaragtay gaadiid looga wadi karo. waxaa laga yaabaa ciidamada sidaa u dagaalamayo waxa ay la dirirayaan waa argagixiso maxalli ah. waxay ka dirirayaan oo ay ka sifaynayaanna waa qayb ka mid ah dalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya nimankaas ayay rabtaa inay siyaasadayso. nimankaas ayay rabtaa inay tiraahdo waa filimo la dhoobay iyo waxay abuurteen waxa ay la dagaalamayaan. wax la abuurtay dhibka ma loo maraa? wax la abuurtay dhibka ma loo maraa? wax kasta oo wanaagsan dhib ayaa loo maraa. waxaan idin leeyahay reer Puntland hadda ka hor wixii ka jiray waan ogsoonna.
waxay Puntland soo martay xilli ay shirkadaha cabsi argagixisada darteed iyo telefoon loo soo diray ay buurahaas maanta calmiskaad ay lacag ku diri jireen wiilal ka soo hadla halka ay lacag ka aruurin jireen Boosaaso iyo Garowe waxaynu soo marnay inagoo culimada iyo dadka reer Puntland ay ka cabsadaan wiil buurahaas ka soo baxay wiilashii carbeed ee buurahaas ku jiray ee ajaanibta ahaa ayaga naftoodii meelay la aadaan la ayagiiba awr loo dhaansanaya ayagiiba laga daba lugaynaya ayagiiba godadkoodii loogu galaya ayagiiba la soo qabanaya halkaas maanta joogta ma u malaynaysaa qof Puntland maanta jooga inuu Daacish ka cabsanayo argagixisada halka ku jira qof reer Puntland oo maanta geyiga Puntland ku nool oo ka cabsanaya muu jira heerkaas waxa idin gaarsiiyay waa ciidankiina aad samaysateen adinku waxa la idinka doonayaa inayna siyaasadayn waxa la idinka doonayaa sidii dagaalkan markii uu shalay u bilowday aad u garab taagneydeen oo aad guuleysta ugu hayseen oo xoolaha ku tirtamayseen oo reer walba iyo gobol walba iyo magaalo walba ay wax u bixinaysay intii ay ciidamada u baahan yihiin maanta ciidanku geel waa u baahan yihiin awr waa u baahan yihiin oo maanta awr baa u gaadiid meesha laga dagaalamayo baabuur ma galo nooc kasta ha ahaado ama mid military ha noqdo ama mid shacab ha ahaado baabuur ma galo wax taayir leena ma galaan awrtaas ciidanku ay hoggaansanayaan oo sahayda iyo gaadiidka ay ku qaadanayaan sahayda iyo raashinka iyo rasaasta ay ku qaadanayaan kuwaas u gaadiida ayagaas ay marna dhaawac ku qaadanayaan marna biyaha ku qaadanayaan marna rasaasta ku qaadanayaan wax kasta maanta ayaga u gaadiid ayagii baxsha awrta ciidanka u kordhiya fardaha siiya dagaalku waa fagaada gaadiid waa iskala baxa wuxuu gaaray in fardo la isku dhaansado in awr la isku rarto runtii waxaan leeyahay maxaa ka xanuun badan askari rafaadsan oo buurahaas u koray sidii wargagixisada u soo qaban lahaa meesha aragteen ee buurta ee kulul ee quraxdu ma aragtay wax yar ay u jirto ee dhagaxaanta ninka ku dhig baxa ama ku dhinta ama ku dhaawacma tusaale ninka ku dhaawacma oo haddana rati la soo saaray oo aad dareemaysid marna inuu xagga u dheeliyahay marna inuu xagga u dheeliyahay dhaawiciisa waxa laga yaabaa 5 saacadood iyo 7 saacadood inuu rati soo saaran yahay kadib gaari loo keeno jidka uu marayo iyo dhagaxaanta iyo dhibka uu marayana ilaahay u dareemi kara ninka dhaawiciisa marka la keeno waa inuu daryeel weyn helaa waa inuu farxad dareemaa waa in shacabkii uu dhibka u maray markii asagoo dhaawaca loo geeyay inay rijo geliyaan isbitaalka lagu booqdo laga warqabo inuu ayaga u soo dhaawacmay ay tusaan waxaan idin leeyahay ciidamada Puntland runtii geesiyaal baa tihiin ummadda Soomaaliyeed oo dhanna ciidankoodii baa tihiin sababtoo ah cadawga aad ka difaacaysaan Puntland wuxuu ku wajahan yahay geyiga Soomaaliyeed oo dhan Soomaali oo dhan baa difaacaysaan Puntland kaliya ma difaacaysaan Soomaali waa idin garab taagan tahay waxaan idin leeyahay guuleysta adkaysiga kordhiya argagixisada soo qabta soo afjara haddii aad dhimataanna mujaahidiin baa tihiin jalayaal waa idin salaamay waxaan idin ka codsanayaa muuqaalkan waa la ii soo diray bari uma dhigan waxaan hadda u soo geliyay qiimaha uu leeyahay muuqaalkan ayaan oga adiguna leegaree siina fage sidaas iyo nabadgelyo